maxkamadaynta saddexeed ee sano oo al-shabaab lala xiriirinaya ayaa ka bilaabatay maalintan magaalada xarunta u ah galmudug ee dhuusamareeb قرابة لما تيجي حاجة متذكر أنا أسكشها لما ما بقى عندك سوق درسين مايا واقع وهي هاي ما أقانو لكن أنا قرت إسكقرد مركز قدي واقع شعيب محمد سلاد waxa uu dafirayaa jiritaanka xogta xiriirka telefoonkiisa gaarka ah iyo ka shaqeynta sahanka wadooyin ay ka mid yihiin Ceelbuur Mirdugule ceel cali mire iyo wadada reer Cabdi Faarax ciidamada amniga oo ka falcelinaya hoobiyaal lagu soo tuuray magaaladan ayaa maalin kadib 4 February ee sanadkan soo qabtay Shucayb laba cishe aan meeshii joogay oo telefoonka iska damiyay oo xaafadii miyiga ahayd joogay waa ka soo tagay maalintii saddexaad Dhuusamareeb imid inta wacay waxaan ku yiri baashi gaari ku dhigantay qarxiye 15 daqiiqo iga warsigu ugu yiri eedeysanaha labaad Cabdi Nuur Cumar Guutaale waxay al-shabaab u dirsadeen dejinta gawaarida lagu xiro qaraxyada laakiin horjoogayaasha howlgelinayay isagaba waxay iska tuseen hawsha in midba kan kale uusan u noqon adeega laga kormacasho taasi oo ka dhigan in dhammaantood ay argagixisada ula joogeen sidii ay lacag uga abuuri lahaayeen waxaa loo soo dhiibay qarax ee mar dambe ciidamada amniga ku guuleysteen fashilintiisa kadib xogaha gaarka ah ee hay'adaha amniga heleen koobi waa niman qabiilo is abaabulo ku tala galay in iska dhacshaan nimanka ahlu sunna halkan joogay waa kaasa oo qabiilkeena ay ahayn waxay salka kula jireen shabaab koobi shabaab ay Mukhtaar Shariif Axmed Xirsi ay ciidamada amniga ku qabteen howlgal ay ciidamadu sameeyeen waxa uu sheegay garsoorka inuu la shaqeynayo koox burburtay oo ahlu sunna kula dagaalami jirtay halkan laakiin al-shabaab way ahaan jirtay koobi ama iyaga dhigooda xafiiska xeer ilaalinta oo eedda qaatay jeedinteeda ayaa maxkamadda hor keenay marag ay ka mid yihiin ciidamada amniga baarihii kiiska qiraalada eedeysanayaasha marag muujino kale oo ku jiraan sawirrada haraadiga qaraxa dhajiska ayaa maxkamadda la hor keenay dhinacyada dacwadda ayaa si siman su'aalo u weydiiyay maragyada maxkamadda la hor keenay General Cabdullaahi Buule Kame xeelaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda weydiistay sidaa darteed maadaama ay caddahay in eedeysanaha koowaad uu yahay gacan ku dhig la dilay marxuum xoogga dalka oo difaaca qaranka ka shaqeynayay miinadii u aasay darteed kuwa kalena ay ka tirsanaayeen urur nabadiida oo dhibaato ku haya ummadda ururka al-shabaab labadooduba ay ka tirsanayeen balse aan lagu qaban fal ay markaas dil ah hadda lagu soo eedeeyay maxkamadda waxaan weydiisanayaa in eedeysanaha kuwaad lagu xukumo ciqaabta u qalanta oo ah dil toogasho oo ah qisaastii marxuumkii uu dilay labada eedeysano oo kalena ciqaab u qalanto xabsi daa'in madaxooda ku furto maxkamaddu waa mahadsantahay Bukaate Ismaaciil Yuusuf Xalane oo qaran u ahaa eedeysanayaasha ayaa maxkamadda ka codsaday in meesha laga saaro qodobada eedda sida 434 sidoo kalena ay maxkamadda xorriyadooda siiso eedeysanayaasha oo aysan ku filnayn in loo ciqaabo eedda xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ay soo diyaariyeen marka maanta in loo keeno maxkamadda horteeda mudane gudoomiye garsoorayaal shabaab uu ka tirsan yahay oo lagu eedeeyay haddana 221 hawshaas maxkamadda iskale gabagabadeeda waxaan ku soo gabagabeynayaa mudane gudoomiye garsoorayaal eedeysanayaashan meesha ku xiran waxay u baahan yihiin oo ay magan u yihiin cadaalad maadaama ay cadaaladda u baahan yihiin xorriyadoodii in la siiyo waxyaabahan lagu soo eedeeyay dhammaan aan caddayn lahayn aan bayino lahayn aan isfureynin maxkamadda go'aanka iyadaa iska leh waxaan codsanayaa qodobka 122 in xorriyadoodii dib loo siiyo maxkamadduna waa mahadsan gaashaanle sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa soo xiray fadhiga maxkamadda oo heerka maxkamadda darajada koowaad looga fadhiyo in go'aan ay ka soo saarto dhageysiga eedda dhanka ka ah eedeysanayaal Shucayb Maxamed Salaad iyo Cabdinuur Cumar Guutaale iyo Mukhtaar Shariif Axmed intaas ayay ku eg tahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saarayso wabillahi tawfiiq Cabduqaadir Ciise warbaahinta qaranka Dhuusamareeb